adduunka iyo ubadka aynu xilliga badan ku bixinay sidii aynu si fiican ugu tabci lahayn si fiican ugu bulaali lahayn si fiican ugu baritaari lahayn inoogu barakoobi lahaayeen dadaal badan ayaan ku bixinay oo ku dhibtoonnay oo wax badan oo kale oo inaga dayacmay sababtay u dayacmeen ay iyaga ahaayeen awoodood ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay haddana wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqarribukum cindana zulfa ubadkiinna iyo adduunkiinna xoolaha a haysataan ma aha kuwa annaka noo kii soo dhoweynaya xataa in yarna zulfa wax yarna xitaa noo kii soo dhoweyn maayaan nooma kii soo dhoweynayaan xataa wax yarna bal fiirso xalii waxaad adduun leedahay ku jari maayo janno goyn maayo maxaa janno goynaya yani camalka wanaagsan baa janno goynaya si ahaantiisa yani adduunkan aan waxba taraynin xooluhu waa maxay waa si ahaantooda waxu tari maayaan yani sadaqa markaad ula baxda waa run laakiin si ahaantooda iskood inaad u dhisto oo u koriso oo ma jarayaan aakhira marka la tago janno kuu goyn maayaan ubadkaaguna janno kuu goyn maayaan iyadana dabcan la sheegi maayo iyagoo kuu soo duceeyo sadaqa kuu bixiyo la sheegi maayo si ahaantooda iyo maaragtay ubadnimadooda kugu jari maayaan janno kuu goyn maayaan ilaahay subxaana wa tacaala intaa markuu noo tilmaamay ayaa qofku wuxuu isweydiinaya maxaa haddaa wax ii taraya ee janno ii goynaya dabeetana wuxuu leeyahay ilaa man aamana wa camila saalixa mooyaane qof ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey camal wanaagsanna la yimi kaas baa ay wax u jarayaan labadaa shay iimaanka iyo camalka saalix ee wanaagsan wax u jarayaan fa ulaa'ika lahum jazaa'u dicfi bimaa camiluu waxay leeyihiin kuwaasi wixii ay sameeyeen oo loo laban laabay walu fiirso abaalmarinta wixii ay sameeyeen oo loo laban laabay bay leeyihiin wahum fi lghurfaati aaminuun waxay leeyihiin qolaal jannada ah oo ay aamin ku yihiin aamin ay ka yihiin aadami aamin ay ka yihiin cadaab alle aamin ay ka yihiin handadaad aamin ay ka yihiin ciqaab aamin ay ka yihiin dhib kasta wanaagsana waa ilaahay salaam لقد قلت في الله لا تقنطوا وإن تعف عني فذلك